shacabka maamulka koonfurgalbeed kulankoodii maanta ay yeesheen ayaa loogu dooday sharciyo ay soo gudbiyeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo guddiga shaqaalaha rayidka maamulka koonfurgalbeed. wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka maamulka koonfurgalbeed ayaa ugu horeyntii golaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan sharciyada ay soo gudbiyeen. wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay parallel leeyihiin laakiin waa madax banaan yahay shaqo qorista shaqaalaha dawladda maamulkooda soo ka qoran. marka waxaan codsanayaa wasiir ahaan bacdana saacaddan iska ariir tahay in waa wada haysataan shuruucdan kan wasaaradda iyo kii guddiga waa wada haysataan. waxaan codsanayaa in la fududeeyo sidii loo ansixin lahaa ayadoo laga duulayo xanaanka daahfuran ee loo siman yahay sida uu qabo sharciga shaqaalaha rayidka. waxaan noo qorshaysan inaan shaqaalaysiino ku dhawaad 60 shaqaale oo isugu jira agaasimo guud ee wasaaradaha iyo agaasimo waaxyada iyo howlwadeeno. sidaas darteed xildhibaanada sharafta leh waxaad ogaataan inaan ku jirno tartan adag guddiga shaqaalaha rayidka ee maamul goboleedyada oo xubin ka yahay dowladda federaalka Soomaaliya ee naga horeeyay ama naga dambeeyay. waxaan ku hanweynahay inaan galno kaalinta koowaad insha Allah. mudanayaal si loo gaar higsiga guddiga unugoto waajibaadkiisa dastuuriga ee saaran waxaan si sharaf leh iyo qiimo badan uga codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inay noo meel mariyaan laba hinti sharciyeed ee idin horyaala. ansixinta hinti sharciyeedyadan waxay naga kaalmeynaysaa inaan helno shaqaale firo badan oo aqoon karti leh korna u qaadaya maamulka iyo maareynta howlaha guud ee dawladda. anigoo hiigsanaya inaan horumariyo haykalka dawladnimo ku dhaqanka dastuurka iyo habraaca nidaamka federaalka ah. waxaan ballan qaadayaa in aan sare u qaado tirada shaqaalaha dawladda u shaqeysa loona kobciyo xeerka aqoontooda ayadoo la raacayo hinti sharciyeedyadan iyo xeer nidaamyaasha dawladda. mudanayaal waxaad tihiin wakiiladii koonfurgalbeed maanta hiilo ayaa idinku baahan yahay dhalinyarada wax bartay ee darbiyada fadhiya. waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad ii ansixisaan hinti sharciyeedyadan idin horyaala. doodheer kadib mudanayaasha baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey sharciyada ay soo gudbiyeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo guddiga shaqaalaha rayidka. gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfurgalbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaana ku dhawaaqay natiijada codeynta. tirada saaka xildhibaanada codeysay waa 93 xildhibaan. 92 xildhibaan waxay oggolaadeen in la ansixiyo halka hal xildhibaan uu diiday. wax ka aamusan ma jiro. marka saas darteed wixii ka bilaabo maanta oo taariikhda bishii 6aad bishii 2aad 2018 waxaa golaha wakiilada fadhigoodii maanta ay ku ansixiyeen guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda koonfurgalbeed Soomaaliya iyo sharciyadii ay soo gudbeen ay ku shaqeynayaan guddiga. sidaas ayay ansix u yeelatay. kala fadhiyadii u dambeeyay